waxaan halkan uga hadlayaa laba qodob oo kala ah mucaaradkii shalay ku shiray hotel Jazeera iyo isbahaysigan cusub ee Israa'iil iyo Mareykanka oo weerar ku qaaday dalka Iran dhibaatadii iyo runtii waxa ay caqabadihii ka dhashay marka hore aan ku hormaro mucaaradka ku shiray hotel Jazeera runtii markaan hadaladooda waxa u kurgalay oo mid aan u dhageystay waxaan ka dareemayaa quus oo nin walba waxa runtii in uu ka quustay kulankii iyo runtii waxa isku dayga ay isku dayayeen in ay ka leexiyaan wadada Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda intaba oo ay doorashada qof iyo codka ah oo waxay runtii ku dadaalayaan inay ku soo celiyaan doorashada dadban iyo teendadii haba ugu horreysay Saciid Cabdullaahi Danne oo runtii muujiyo quustaasi oo yiri wax aan qaban karna haba yaraatee ma jiraan maxaan ka qaadi karnaa madaxweynaha waanan iska qoslaaya waanan iska faraxsan howshiisii wata madaxtooyadu wuxuu yiri waa meel Soomaaliyeed oo dhalinyaro Soomaaliyeed iyo ciidan Soomaaliyeed howl Soomaaliyeed ba ka socota runtii waxa meel aan wax ka bilowno ma garanayno Sheekh Shariif waa arkaysay hadaladiisii quusta ahaa runtii waxa uu yiri meel aan wax ka bilowno ma naqaano marka quustooda maxaa keenay su'aasha waxaan ka hadlayaa maanta quustooda waxaa keenay shacabka Soomaaliyeed oo garsoore ah shacabka Soomaaliyeed oo arkaya wanaagga iyo horumarka dalka uu ku socdo shacabka Soomaaliyeed oo runtii arka wax ka bedelka dastuurka lagu sameeyo ee nidaamka awoodda oo gacantooda loo soo celinayo shacabka waxay u kala garsooreen cid iyaga waxa runtii awoodooda u soo celinaysa oo doorasho qof iyo cod ka hadlaysa oo dastuurka qaldan runtii waxa garowan iyo garowatu ah dib u eegis ku sameynaysa iyagoo waliba maalintii ay tartamayeen 2022 nin walba uu ku hadaaqayay aniga haddaan dalkan qabsado waxaan runtii waxa dhameystirayaa dastuurka qabyada ah haddaan dalkan madax ka noqdo aniga waxaan haddaad doorataan waxaan runtii waxa ummadda Soomaaliyeed gacantooda ku soo celinayaa awoodoodii oo doorasho qof iyo cod ayaan sameeynaya marka nin walba shalay joog waxa uu ballan qaadayay shacabka de waxa waa garsoore sax ah maanta lagu jiro de xilliga BBC da waxa hal radio inta meel la saaro afar oday soo dhageystaan waxa sidii doonaan u tarjumaan hadda social media ayaa jira oo ummadda Soomaaliyeed waxa nin walba uu gacantiisa ku haysta information-ka ugu dambeeyay adduunka wixii shalay dhacay uu gacantiisa ku haysto wixii maanta dhacay ayuu arkaa marka shacabka Soomaaliyeed waxay arkeen meel walba ay joogaan deegaan walba ay joogaan in waxa dawladda ay ku taagan tahay dariiqii saxda ah oo runtii waxa awoodda ummadda Soomaaliyeed soo celinayso in horumarka dalka ay ka shaqeynayso shidaal iyo macdan hadii la yiraahdo runtii waxa dunida la raadinayso dad u soo saaro ummadda ka saara gaajada marka shacabka de waxa ma ahan cawaan ma waa dad waxa qarniga hadda waxay ku jiraan 20aad informationada adduunka ugu dambeeyay helay marka waxaan leenahay mucaaradka iska quusta this time waxa runtii bal la imaado qorshe cad ee runtii kaga hortaadaan laakiin waxa horu socod iyo dib u laabasho shacabka waa kala garan karaan mar hadii la leeyahay 2012 la soo dhaafin oo dastuurkii 2004 2005 iyo 2012 uu hal taagnaado yana talaabo hore loo qaadan oo qabyanimadii aan la dhameystirin oo dastuurka qabyada aan la dhameystirin marka waxaan leenahay taasi tudoo waxay ku hungoobeen qaab ay haba yaraatee diyaar ay ku yihiin oo ay kaga qayb gali karaan doorashada ma jirto waqti baa kaga dhumay waxay ku fikirayeen in waxa runtii kacdoon ay abuuri karaan oo runtii 91 iyo geel iyo baraay iyo waxyaabo noocaas oo madaxtooyada ka soo baxay lagaaga ba dhamaaday waxyaabo noocaas ay qorsheynayeen laakiin tan waxay ku noqotay wake up call iyadoo xilliga la gaarinba in waxa 15 Ramadaanka la dhameystirayo dastuurkii maamul goboleedyadana bisha Abriil la dhameystirayo kadibna waxa dalka dastuurkiisa ayaa lagu dhaqmayaa dalka dastuurkiisa muxuu yahay dalka dastuurkiisa doorasho qof iyo cod waa xisbiya ayuu ku tartamaya qof aan xisbi lahayn doorasho kama qayb galayso marka guddiga doorashada ayaa diyaarsan oo soo diyaarinaya xisbiyada diyaarsan marka iyagana mucaaradka meeshooda taagnaa xisbiyo oo diyaarsano marka waxaan leenahay unfortunately waa ka xunnahay waxa runtii waxa siyaasad xumada ay ku dhaqmeen sanadkan 2026 laguma jiro 2022 marka taas kuma fogaanayo laakiin waxaan leenahay bal caduftiina gadaal u laqa oo bal dib waxa ma taqaanaa bal wax kale qorshe kale wala imaada qodobkeen kale waxaan uga hadlayaa xaaladda iyo dagaalka cusub ee runtii waxa Israa'iil iyo Mareykanka oo isbahaysanaya ay ku soo qaadeen dalka Iran laakiin tan waxay noqotay dharbaaxtii ugu xumeed ay runtii kala kulmeen iyagoo waliba in badan laga digay oo la lahaa ku degdegana dalka Iran xaaladda sidii hore ma ahane markaba waxa ma taqaanaa waxay isku dayeen inay waxa dadkii oo runtii waxa ardadii oo iskuulka iska joogta in ay iskuul weeraraan dhowr iyo konton ee halka ay ku dilaan arday iyo macallimiintoodii isla markaba waxa Iran way ka jawaabtay dalalka interest-ka ama waxa uu ku lahaa basiska ama uu ku lahaa saldhigyada military ay markaba weerar ku qaaday marka dalalkii ay waxa runtii waxa interest-ka Mareykanka basiska ku lahaa ay toos waxa u abaartay
interceptionka ayay sameeyeen inkastoo waxa waaye gantaalada ay wada rideen la soo wada riday laakiinse hadda waxa waaye waxay gantaalo iyo madaafiic la heleen dalka Iran magaalada Haifa iyo Tel Aviv oo runtii hadda waxa waa gantaalo aan kala go' lahayn ay ku rideen laakiinse halkaas sidoo waxay digniin ay u digayaan dalalka waxa waaye ma taqaanaa muslimiinta ama carabta ah oo ay kaga digayaan waxaasan idinku samayn karnaa meeshan doonana waxa waadan ka weerari karnaa bal ka digtoonaada saldhigyada waxa waaye markii ama soo ridaan ama ay soo rideen laakiin saldhigyadooda ayaa la weeraray marka laftirkooda de wake up call ay ku noqotay waa ay wada hadleen Sacuudiga laftirkiisa wuxuu leeyahay waxa waaye annaga ma aanu ogolaan dalkeena waxa waaye ma taqaanaa Iran laga weeraro sidaas oo kale hadda leeyihiin dalalkii kale laakiin waa istuuleed oo waaba laga weeraray marka waaba laga weeraray Iranna waa ay u soo jawaabtay oo retaliation wax yiraahdo ku soo sameysay marka waxa waaye drones far badan ayaa ku socota maraakiibtiisa asagana drones aan xad lahayn marka waxaa moodaaba Iran inay u diyaar gareysneed dagaalada noocan oo kale ah ay sugaysaba runtii waxa waaye iyadoo isku hurdo kaliya markii la garaaci jiray maaha waliba saa hadda ay tahay waa laba dal ayaa isbahaystay oo runtii waxa waaye awoodooda aad garan kartaan Mareykanka iyo Israa'iil xaalad xun ayaa lagu jiraa waxaan leenahay ma taqaanaa dagaaladaas tudinay waxa waa kala qaboobaan runtii isku daygaas oo runtii ay isku dayayaan Mareykanka inkastoo hadda iyadoo hadda la leeyahay xataa diyaarad F-35 ayaa laga soo riday iyadoo hadda wararka ay sheegaan xataa F-35 tii soo weerartay iskuulkaas in la soo riday aysan dib u laaban xataa laftirkeeda marka laakiin ay qaranayaan Mareykanka